عبد الله مركز كسر مداش فرن عاوة سديد توقي مي برنامج وعضلنا صوبر دكتي جوي كور والله جوي حوق بوف يعني جامعة واد ما سنتي سامع فرسلة وكقريب قلا حفلات سومالي دورن هي الراديو قبل دالي almost more than 15 years وما سنتي جامعة. هذيك مدن عاوة مركز لقيتها وبضيه مرت شرفتي يعني غالي صوبر دكتي يا إنوجو. waxaa inoo jooga fannaankeena weyn ilaahay baa weyne iskalachi iyo ilan reer Djibouti faayisa dugsi ayaa inoo joogta marka caawa xafladdu way shidantay Soomaalidu dhan baa isu wada timid Somaliland celebration keedii way ka soo qayb galeen walaaladayda Soomaaliyeed ama reer Djibouti ba kulligood way mahadsan yihiin sida caadada u ahayd barnaamijyada aad qabato Soomaalidii Edmonton waa ka soo wada qayb galeen caawa mar kale عاد كل هذا هاي dadkii ka soo qayb galay barnaamijka والله waan u mahadnaqayaa dadka yimiyo dhan amba Soomaaliland ama Soomaaliyo dhan ama reer Djibouti ama meel kasta ay joogaanba way iskaga yimaadeen xafladan kulligood ay dabaal degaan habeenka May 18 marka waan u mahadnaqayaa shacabka Soomaaliyeed iyo reer Somaliland iyo reer Djibouti kulligoodba Abdullahi aad baa mahadsantahay markale thank you jaamac waa mahadsantahay waa dhawahay wariyeena qaran ee magaalada Edmonton aan ku dhaarno عاوزتي توقي مي Edmonton joogna ka waran joogi wallahi joogiga aad u qurux badan yahay long week ana lagu jiraa magaalada Edmonton dadka dhan way faraxsan yihiin waxa kale oo aan caawa ka soo qayb galay xafladda 18 May aadeen u shidan tahay ma sha Allah waxaan u imaaday inaan dadka reer Somaliland aan solidarity u muujiyo waligeyna waxa waay dadkii taageeri jiray heesahayga iyo businesskayga showyadeeda dadka number 1 ka ah Somaliland madaxay ii saareen waxaan leeyahay happy Somaliland day jaamac waad mahadsan tahay magacaygu Cabdikariin Jawaase aad iyo aad buu joogu fiican yahay maanta waxaan ka soo qayb galay sanad guuradii 34 Somaliland ay kaaga dhigantay caawa in aad ka soo qayb gasho runtii waa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo jawigayga lama qiyaasi karo mar walba oo dhacdana waan ka soo qayb galaa marka waan community-gana waan habalyeynaya iyo dhammaan bulshada reer Somaliland meel kasta ay ku nool yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Fuad Xasan Cabdillaahi waxaanan ka mid ahay jaaliyada reer Edmonton ee Somaliland runtii caawa dareenkayga lama soo koobi karo xafladda halkan caawa lagu dabaaldegayo 18 May marka waxaan leeyahay reer Somaliland dhammaantiinba hambalyo runtii nabadda ayaa wax walba dadka wada deeqda marka waxaan leeyahay nabadu ha lagu wada noolaado iyo horumar marka insha Allah saasaan leeyahay dadka reer Somaliland dhammaantoodba anigoo leh kulleeyay imka madaxweynaha la doortayna fariin u dirayo leh hambalyo runtii imka qof kastaaba meel buu soo gaarsiiyaa madaxweynaha hore hadduu meel soo gaarsiiyaa aduna insha Allah meel kale oo ka sii fiican baad gaarsiin doontaa marka waxaan leeyahay hambalyo reer Somaliland oo dhan dhammaantood 18 May assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ahay mawlid aadan jaamac mid ka mida muwaadiniinta reer Somaliland ee ku nool qurbaha gaar ahaan Canada caawa habeen aad u weyn oo waa 18 May waa la isugu yimi dhammaan cid kastaba waxay ka soo qayb gashay farxadda inay ka qayb qaadato 34 jirsatay ee Somaliland ilaahay baa mahad leh sidaa daraadeed baan qayb uga soo noqday hadda waxay noo tahay labadii habeenimo dhowdhow Somaliland waxaan u maleynayaa waqtigeedu kulay wuxuu ku beegan yahay subaxnimo sida aan filayo waqtiga xafladdu waqtigay bilaabantay waynu ogeyn ilaa iyo hadda waxay u socotaa dabaaldegi baa socda dadkuna farxadda iyo niyad samida ay ku qabaan ilaa iyo hadda waynu aragnaayo waxa weeye hoolkii waa buuxsamay ilaa iyo dibadda ilaahay baa mahad u sugnaatay nabadda iyo sharafta iyo cisigaasba siday ugu qabsoontay aad iyo aad baan u hambalyeynaya soo qaban qaabiyayaashii oo aad qayb ka tahay ilaacadaadu iyo raadiyogaaga faras adigoo aad ula shaqeeya community-ga dhammaan Edmonton iyo Inlaaj Canada oo dhan aad baan kaaga mahad celinaya adiga mudan waxay dadka aan maanta ka soo qayb
bal sidee wax u dhaceen qaybaha kala duwan ee xafladii aad iyo aad dadku way yimaadeen haddaan dib idin yar celiyo khudbada la sameeyay waxa laga hadlay taariikhdii Soomaaliland ay ku sugnayd waxa laga hadlay oo lagu horeysiyay Edmonton iyo community-ga Soomaaliland dhammaan iyo inta la deriska ah ee Soomaali oo dhan ka soo qayb gashay taariikh dheer kadib oo Soomaaliland 34 jir satay madaxweynayaashii sidii la isugu soo dhiibay qoriisu dhiibka ahayd taariikh aad u dheer baa laga soo sheekeeyay haddii aan in yar anigu aan guda galo waxaan ahay dadkii ku dhashay run ahaantii calanka Soomaaliland oo jira maanta 34 sanadood ay jirtona waxa weeye aan arkayay intii aan ka soo gaadhay sidii ay isu bedelaysay doorashooyinkii ay qabsanayeen hanaankii dimuqraadiyadeed nidaamkii baarlamaannimo nidaamkii kala dambayn ay mandaqada kaga duwanaayeen ku xeeran waxa la run ahaantii wax Ilaahay loogu mahadnaqo in yarun baan rabay inaan ilaacada aan kala soo qayb galo oo aan wareysiga ugu muhiimsan aan rabay inaan siiyo ta koobaad oo ah inaan kaga faa'iideysto inaan salaamo dhammaan reer Soomaaliland ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliland oo ku xigay madaxweyne ku xigeenku dhammaan golayaasha ciidamada qaranka dhammaantood salaam baan halkan uga gudbinayaa farasow waxa aad u sharaf badan oo aan rabay inaan la wadaago reer Soomaaliland sidii wanaagsanayd ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku ay u qabteen arrimihii maxay ahaaytay qaramayntii ciidamadii madaniga ahaayoo kale waxa aad u sharaf badan run ahaantii wax dadku la yaabanaayeen hub galay shacab gacantii sida loo soo celiyo waxyaabaha aan rabay inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo madaxweynaha iyo nidaamkiisa iyo dhammaan odayaasha iyo intii ka shaqeeyay oo dhan bay ka mid tahay iyadoo ay cusub tahay xukuumadda maanta qabatay Soomaaliland haddana ay fafaalaha iyo siday wax u wado waa si aynu oran karno run ahaantii waxa ku jirta miisaaniyad waxa ku jirta tixgelin waxa ku jirta way aragnimo waxa ku jirta dagaaladii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay eeriyada iyo mandaqada siday u xalishay dadku inay nabad ku wada noolaadaan in laga shaqeeyo dadku inay deris wada noqdaan in laga shaqeeyo waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynay weeye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برشاد الرئيس Somaliland هوينها يعني يرضى وضعنا قميتك مدحضة شرفت بدنا إن جلسوا قيم كشيء دلك كندا بطفي إمام شريف حاجي يتمي ليتيس كذا والله ريال وحمرك كواب ما حد يا الله سبحانه وتعالى إنه نبض قضاء إنه عفاف قضاء مرة إنه فرنسية ولا ريال سووا الأغنى هاي استيادية ترجي مي يسارت كيو هراء تذكر Somaliland حمدي دور شده حيسي حمدي دور شده تذكر kala duwan ee walaalaha ah xisbiyo iyo asxaab bay kala ahaayeen marka waxa lagu wada tartamayay quruxda iyo nabadda Soomaaliland dhextaala ay ku caanamashay sanadkan 18 May quruxdeedu waxa ka muuqata madasha midnimada wadajirka iyo gacmays wada qabsiga reer Somaliland ku caalamaaleen